السلام عليكم أصحابتي وحول لمانتي نقولي قبلنا الله يا عداد وعصب سكرب كيسار سكرب ورايكو صار dadka igu soo biro waxaan leeyahay waa mahadsantiin walaalo jira walaalka maalinta u baahan tahay ku garab qabta waa walaal qaali ah oo liidan insha Allah biidnillah kalma idin hilmaamina insha Allah biidnillah kariim qalabta xoogaa waa ay qabowdahay warceel ilaa saas ugu sii wad ilaa Soomaali qulubtooda isku dum aanu duceyno insha Allah biidnillah kar waxyar antu oo fiirino ma sha Allah الحمد لله والله إلهي برعب بقول هاي صمريو وولاله صوماليو واستقالاي إلهي هقولوا إن شاء الله حق الله تصو صوماليي ودعي صومالي ديك يقحر يكدير يكبح الأضايا magaalada Guraceel xilligan gobolkii ayaa dhacay maanta ilaa saaka wax dagaal toos ah oo kafol ah ka muusa dhicin marka laga soo tago xabado tuuriyeys ah oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen ciidamada ahlu sunna waxay ku sugan yihiin maadaama maalmihii ugu dambeeyay halkan uu dagaal xun oo dhinaca dawladda iyo sidoo kale ahlu sunna ka dhaxeeyay uu ka socday Guraceel jaamacadda iyo sidoo kaleeto kaam qootiro iyo waliba beerta dahabadamca loo yaqaano dhinacaas waxaa jooga ciidanka ahlu sunna wal jamaa marka laga soo tago intaas hadda aan tilmaamay inteeda kale magaalada waxa haysta ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ciidamada dawladda meelaha ay saaka la wareegeen waxa la igu sheegay inay tahay xaafado ka tirsan Sterling sidoo kaleeto dhinaca wadada Balanballe oo maanta ciidamo xoog leh geeyeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya maadaama wadada Balanballe dhinaca waqooyi degmada Guraceel ay xigto waxa kale oo la sheegay oo saraakiishu ay sheegeen in ciidamo kaleeto oo dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan la geeyay wadooyin kale oo markaasi muhiim u ah ciidanka ahlu sunna wal jamaa iyagoo halkaas ciidanku fariisimo cusub ay ka samaysteen waxa magaalada ka maqnay maalmihii ugu dambeeyay korontada oo laba shirkadood oo halkan ka howlgasha ayaa korontada jirtay markii dagaalku dhacay laakiin galabta ayaa waxa la soo daayay mid kamid ah waxay soo siidaysay korontadii maadaama marka waxa ilaahay Soomaaliya u duceeyay wadankeena Soomaali dadka kalena way hormareen ayagana dagaal aan dhamaan oo maala yacni ay ku daalayaan war Soomaaliya dadku waa ilbixeen dagaal waa laga ilbax Afrikaan awalba aqli ma lahayn Soomaaliya qabyaalada iyo qurunka iyo nin jeclaysiga aan iska deyno aan dalkeena horumarsano aan wax barano qalbigan jaahilka aan ka baxno jahligan aan naga dhamaano qabiilkii qurunka aan ka baxno mideeda kale dawladana waxaan leeyahay u dhimriya dadkeena waa dad masaakiina labada dhinac waxaan leeyahay waxa aad ku socotiin wax fiican ma shacabkiina ka fakara shacabka baahan dariiqada wareegayo rafaadka haysto oonka gaajada dad waxaan u badanahay muruq maalata ah haddana maantay dadka dhan waa laga barakiciyay والله wax laga xumaado waxa ah qofkii muruq maalata ya umqa ilaaha umqa war Soomaaliya waxaan aan ka waantoonay inaan dad madaxda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dantaada qaaska ka hormar danta shacabka wallahi inta noocaas aad u shaqeynaysiin inaan waxaan qabsanayna adduunka isii jirin ma fahanteen dadka qulubtooda madaxda waxaan dadka qulubtooda hantiya qofka markaad u garab laalaadisid asna oo ku xasuusana laakiin markaad sidii libax amal aad dadka aad ugu soo haadid waa dhib badan tahay insha Allah guuliyo gabanimo dadka ku soo iskarib kaysar intaas waana ilaahay saxaabay wadanka loo duceeyay ilaahay nabad khayr qabta ummadda isdagaalaysa Allah dhexdhiga meel walba ay Soomaali joogtay qalbiyadooda ilaahay sudumo taasaa muhiim ah inuu duceeyno wadanka ilaahay qulubtooda inuu soo raga Soomaali ilaahay qulubtooda inuu sudumo إن شاء الله بإذن الله كريم أنا دولة لما جري السنة لما جري وحن جعلها اللي سلمت كذا كم على لقحك ومدة مساكين تان لقحك نلاش تذكر الوعي يعني تاسان ربع وواحد والبليجر هذا النوع البشق يستور وصعد ظروف يضمها يدي بعد تذكر بل هذا الملايين قف هالكذا كانت قرعين ما أنت قادر بيشكر هذا الجفان وقولوا هذي كبحين دعمية تاسم سواء إنكار وإنكار ودادكي كقالوا dhibaatadaas u geystay ma inkaar ma soo wadco waa inkaar wallahi billah قولي يا قبني ما لما انتي ان شاء الله شخصيا نبتقل